Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa sheegay in weli maamulka gobolka Banaadir uu wado qorshaha looga hortagayo cudurka Covid-19 oo kiisas ka mid ah laga helay gudaha dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka in maamulka uu bilaabayo qorshaha wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka coronavirus isla markaana ay weli uu yahay khatar ka jirta gudaha dalka Soomaaliya isla markaana mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir Darweyn ay ka qaadan doonaan ka hortagga cudurka Covid-19. Hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Finish ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay uu hoos u dhac laga dareemayay cudurka Covid-19 ee dalkeena Soomaaliya isla markaana dowladda Soomaaliya ay qaaday xayiraadii saarneed oo la xiriirtay dhanka cudurka coronavirus. Cudurkan Covid-19 ayaa bishii Diseembar ee sanadii tagtay 2019 ka soo bilowday dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Wuhan oo ku taala bartamaha dalka Shiinaha kaasoo dabadeed gabi ahaanba ku faafay caalamka. Dad badan oo Soomaali ay ku jirto ayuu xayiraad geliyay cudurka Covid-19 isla markaana dalal badan oo ka mid ah wadamada Afrika, Aasiya, Ameerika iyo qaaradda Yurub dadkii isaga socdaalayay gabi ahaantooduba ay noqdeen kuwo xabsi guri ama guryaha lagu karantiilay kaas oo sabab u ahaa cudurka Covid-19 oo ka dilaacay wadamo badan oo ku yaala caalamka. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in cudurkan uu sii yaraanayo isla markaana xayiraad la khafiifin doono waxaana horey wasiirka duulista hawada Soomaaliya oo sheegay in gabi ahaanba xayiraadii dhanka duulimaadka caalamiga ah la fasaxay kaas oo u muuqday in uu sii yaraanayo cudurka coronavirus waxaana ay ku soo beegmaysaa in xilligan gudoomiyaha gobolka uu ku celiyay in kiisas hor leh oo la xiriira cudurka Covid-19 laga helay gudaha dalka Soomaaliya.